marka dadka iyaga waaweyn annaga qabyaaladu maskaxda kaga wada xidhanta waayo waanu ku dhalanay waana lagu soo barbaariyey iminka waxaa la marayaa maalin dhow in qofka yar markuu dhasho dhegtaa lagaga eedaamo taana reerkooda loogu sheego si aanu u ambanin mabaqli jirta qofka dhegta kaga eedaan dhegta kalena iminka qabyaaladaa loogu sheegaa reer hebel baata markaa walaalayaal si aynu uga baxno horta adduunyada dheef la xoojo dhanaan maadaama shaqaysa labaatanitiina dhaaftay iskuulkiina idiin dhammaaday siyaasadda dhinacyadeeda dhaqaale idinkaa ku fiican idinku dhallinyaray dhulkeena dhaqaajiya habliisa waxa weeyaan wax badan baa inaga iskaga qaldanoo qabiilka iyo qabyaalada ilaa iyo la kala oo laba loo kala garto waxba ma hagaagayaan waa ciise mabeeba ya qabiilka iyo qabyaalada ilaa la kala garto oo laba loo kala garto dee ismid baan u aqaanaa qabiilku waxa weeyaan kii tacaarifkooda ahaa in laysku garanayay nasabadda ahaa qaabkuna waa kan iminka wax loogu doono ee xun oo waa qaabkii dee oo dee waa tan reerka iyagu muxuu dowladda ka helaya taqriban waa reerka iyagu dowladda muxuu ka helay baarlamaanka muxuu ka soo qof reera baa lasoo sharaxay qof reera baa lasoo wada bal xagee reerka iyagaa laguga soo wada qofka reerka kale taas waa xaaraan waa in la yidhahdaa xaafadaasaanu ka soo sharaxnay aqoontaasuu leeyahay specially weeye experience developmentinka joob uu horumarinaya hawlaha laga sheekay markaa qabyaalada qaabkeedu waa qaabkaa lagu shaqaysanayay qabiilkuna waa kii tacaarufkoodu ahaa la isugu naxariisanayey wax la isugu tarayey sadaqada adkadaada siisaata kale ay ka ajar badnayd ee horta qabiilku isaga kaa alle halkaa ha la dhigo laakiin qaabka ha la diido oo qaabka lagu shaqaysanayaa qaabka eega qabiilkana waa loo dhashay qof waliba qabiilkiisa wuu ahaanayaa ilaahay ma qaldanade waa nasabad waa tacaarufku qabiilka ilaahay baa inoo sameeyey qof walibana si qabiilkiisa loogu ixtiraamo waa inuu qabiilka kale iyo dadka kale sharbo oo uu tixgeliyo marka qabiilka kiisii hore jahliga ahaa waynu ka soo gudubtay hebel u toogo oo la wareegaye waa saac bash iminka hadda waxaan ku soo dhawata maanta waa jaasi doonaa iyo waxaan ku dhufan doonaa Michael Jackson ninka bal heesaha cusub ee ku daafurayna meesha heesta ugu horeysa haramo weydaan noqday absolutely